golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta Jimcaha lagu wadaa inay go'aan ka gaadhaan in cunaqabatayn lagu soo rogo Iran iyo in kale. Yaxya Nairobi ayaa warkaasi faahfaahinaya. golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa maanta Jimcaha lagu wadaa inay go'aan ka gaadhaan in cunaqabataynta dib loogu soo rogay Iran iyo in kale. golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa sheegay in Iran ay ku awlanto inay horumariso barnaamijkeeda hubka nuclear. madaxda reer Yurub ayaa sheegay in waqtiga uu cararayo iyadoo hawlaha diblomaasiyadeed waqti la siiyay, haddana weli aan wax natiijada ka soo bixin. shirka guud ee golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu dhaco toddobaadka fooda ugu soo haya. madaxweynaha koonfurta Kuuriya ayaa imika haya gudoomiyaha golaha qaramada midoobay ammaan 15 xubnood ee golaha ammaanka codeynta in Iran dib loogu soo rogo cunaqabataynta hubka nuclear-ka ayaa u baahan inay 9 xubnood u codeeyaan wixii ay isku raacaan si ay sharci u noqoto. 15 xubnood ee golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa fikrado kala duwan ka aaminsan waxa laga yeeliyay Iran kadib dagaalkii 12 shay ay Iran iyo Israel wada galeen. cunaqabataynta la damacsan yahay in Iran lagu soo rogo ayaa waxaa ka mid ah in laga hor joogsado casriyeynta gantaalaha balaastigada iyo weliba gantaalada Ruuska. Yaxya Nairobi, wararka arrimaha dibadda TV-ga qaranka Soomaaliland, Hargeysa.